madaxweyne farmaajo iyo xasan khayre waxa weeyaan taariikhda marka ilaa cabdilaahi yuusuf dawladdiisa laga soo bilaabo labada nin ee ugu fiican xagga isfahanka oo runtii mudan in lala shaqeeyo weeyaan xaqiiqatan waa sidaa wixii kale ee ka qaldamaya waa bini aadan hala sheego laakiin labada nin waxa weeye laba nin oo isfahansan isla jaan qaaday oo farmaajo wuxuu ku guuleystay inuu ra'iisul wasaare firfircoon ay isna fahmi karaan inuu magacaabo baarlamaankuna waa saxiix waxa kale oo waliba farmaajo ku guuleystay oo runtii ay tahay in loo qiro oo gobonimo ah hadiya jeer madaxda Soomaalidu marka ay ilaa wasiirada asaasa weligood dhaqanka wali ahaan jireen waxa la yiraahdaa decentralization iyo shaqada in la qaybiyo ma yaqaanaan qofka shaqadiisa uma daayaane madaxweynuhu intuu wasiir dhiso haddana shaqada halkan ku haysta inta badan dhaqanka Soomaalidu waa iska caynka shananka ninkaah madaxda ka hooseysa ma ixtiraamo shaqadooda uma daayee ilaa taliyo ugu doonaa inuu dhaafo dhaqankaas inta badan lahaan jiray farmaajo dhaqanka ma laha oo dad badan baa waxay ku canaantaan ma ku yiraahdaan ilaa wixii aynu ku barbaaray siyaasadii baa la doonayaa waxaynu ku barbaaray oo 3 sanadood aynu naqaanay kaliya talismadaas aynu naqaanay farmaajo dad baa imka ku canaantaan ra'iisul wasaarahaaga ayaa shaqadii faraha uga qaaday uu ku saxan yahay siyaasadaas siyaasad qaldan maaha hadduu ra'iisul wasaaruhu shaqaynayo in loo daayo shaqada fulinta ee wasiiradiisa inuu isagu dabagalo la xisaabtamo oo madaxweynuhu kaalintii odaynimada dalka qaato arintaas waa muhiim farmaajo arintaas horta qaato hadday xan badani soo gaadho madaxweynuhu capable maaha oo awoodii uu dalka ku hogaamin lahaa maaha waa qaladkaynu inagu siyaasadda ka fahanay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa laba nin oo isku fiican so far inta noga hayna si wanaagsan bay u wada shaqeeyaan laakiin dadkii had iyo jeer inay wax qaldaan oo ay isqabsigooda ka faa'iideystaan ku talagali jiray baa meesha shaqadoodii ka maqan tahay marka dadkaas shaqadoodii abuuranaya taana la socdo maanka ku haya waxay inooga baahan tahay xukuumaddu haddaynaan dadka aynu meesha keenayno dooranay la shaqeynin iyagu kaligood ma shaqeyn karaan inta ay shaqeynayaan diinta culimadu bay nala joogtay ulul amrigu intii waxaad ku dooratay aanu ka leexanin inaad adeecdaabo xaq kugu leeyahay ilaahayna uu kugu xisaabtamaya waxaan idinkula dardaarmaya jaaliyadiina qadar oo runtii kaalin muhiim ah ciyaari karta inay dawladdu inta ay oo iyo madaxda xukuumaddu inta ay wada socdaan inaynu inaguna kula shaqeyno hadduu khilaaf waxay noo tarayo Soomaalida halka isaga dhigay waxa halka ina dhigo khilaaf iyo midi ku taag iyo waa runtii waa sidaa مثلا siyaasadda bariga dhexe iyo dalka imka ku nooshihiin mowqifka Soomaaliya ka qaadatay siyaasadda bariga dhexe iyo isqabsigii barigii dhaweeto waxa weeyaan qof dhinac doonaha iska taagay aqliyad buu ku dhisnaa saliima ilaahayna uu ina waafajiyay baa la oran karaa oo haddaan de ilaahay talada mararka qaar ku waafajin lama guuleysto ilaahayna uu waafajiyay madaxda dalka go'aankii saxda ahaa right decision la oran karaa way qaateen runtii waana shaqaysay oo idinka imka arkaya